كنا كينا مانتا وحويان أولا وقد الشرف عن مانتا وصمينا هدان لهي حبناها أما مسؤولين حسبي وطني باش عبر عفان وقد الشرف عن وصمينا مانتا حسبي وطني أوه قامنا يو قدومي عبد الرحمن عرو قد الشرف كاسنا waxaan uga mahad celinayaa sida noo soo ajiibay iyo sida uu nooga soo qayb galay waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa aad ugu faraxsanahay booqashada uu soo booqday maanta gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro iyo wafdiga ballaaran ee uu la socdo oo kamid yahay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka oo isla maanta inala fadhiya oo degmadiisii iyo jooga gobolkiisii aad baan ugu mahad celinayaa booqashada qiimaha leh oo maanta uu sameeyay gobolka Awdal waxaan leeyahay gudoomiye waxaad ku soo dhawaataa marti sharafka ama qada sharafka maanta aan u sameeynay xisbiga wadani ee uu sameysay bahweynta beelaha habar cafaan ay u sameysay mas'uuliyiinteeda xisbiga wadani ku jira ay u sameeyeen waxa leeyahay ku soo dhawow martida kalena saas oo kale iyadana sharaf bay noo tahay inay nagala soo qayb galaan qada sharafkaasi aadna waan u mahad celinaynaa Sooriyana waa tii la isku lahaa oo Sooriyo waati la isku lahaa marka la soo booqday la isku yimaado maanta Sooriyada iyo xisbiga u fidinaynaa kulay hadalka diban kulay wada sheekaysan doona mas'uuliyiinta xisbiga iyo beesha habar cafaan waxaan gali doonaa shir kulay albaabada ay u xiran yihiin ay saxaafadu dibadda ka joogto taasaana wax isku oran doonaa waxaan kaga wada hadli doonaa xoojinta iyo tayeynta xisbiga iyo sida beesha habar cafaan ay uga muuqan lahayd tayadeeda iyo cududeeda iyo xoogeega xisbiga wadani sida darteed waxaan kulay hadalka aan u yeelan doonaa markaynu qadayno kadib bahweynta habar cafaan iyo xisbiga wadani shir gooniyaan gali doonaa waxaan kulay wada fariisan doonaa oo ku dhamaysan doonaa laakiin imika inagoo saxaafada kulay iska fasixi doona hawsheenuna ay qadadeenu inoo socon doonto hadalkana aan ku soo dhaweyn doono dad macnahan saan uga mahad celiyaan booqashada xisbiga ayaan kulay ku soo dhaweyn doonaa xisbiguna kulay aad iyo aad u mahadsan yahay 100 jeer booqashada gobolka uu yimiday beesha habar cafaan siyaasiyiinteeda ama xubnaha mas'uuliyiinta ee xisbiga ku jirana iyaguna aad buu mahadsan yihiin hawsha maanta ay qabteen ee qada sharafka ay u sameeyeen xisbiga soo ajiibay qada sharafta aanu ugu sameeynay hotel rays ayaan u mahadnaqayaa waxa kale oo u mahadnaqayaa xubnaha saxaafadeed ee garab jooga ee nagala soo qayb galay martiqaadka waxa kale oo u mahadnaqayaa kolley dadweynaha ajiibay inayna soo aynoo yimaadaan nagu soo ogolaaday ragga leh dhallinyarta leh odayaasha leh cuqaasha leh waxgaradka leh culimaaudiinka leh intaba waan u mahadnaqayaa dhammaantiina mar labaad baan haddana idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaa uu xildhibaanku sheegay kolley waxaanu galaynaa annaga oo ah xubnihii ka tirsanaa awalba xisbigan wadani oo aan ahayn kuwa maanta soo galay habar cafaan maaha tu maanta xisbiga soo galaysa awalba way ahayd sidii bayna u tahay nin hadduu ka tago ku kala imanaya waxa weeye waxaanu galaynaa shir albaabadu u xidhan yihiin saxaafaduna dibadda ka tahay markaanu qadada dhammaysanno xubnaha xisbiga ee waftiga ah quruxda badan ee soo agaasimay inay yimaadaan gobolkan Awdal kabacdi markaanu qadada dhammaysano ayaanu shirka u fadhiisan doonaa cidnaba kaga haybaysan mayno haddaanu habar cafaanahay
habar cafaanna waa wadani aad iyo aad baan horta uga mahad celinaynaa qada sharaftani aad samaysteen sida fiican loo soo agaasimay qiimaha iyo qaayaha badan leh sida kale xisbiga dee la iskuma haystee cid ka tagtay ma jire annagu sidii aan u joognay baan u joognaa sidii baan u joognaa wax ku biira maayna wax ka dhacana loo yeeli maayo sida inoogu muuqato hadduu niyar turunturoodana dee mid unbaa kor u joogo kolley biniaadanka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waddanka hoggaankiisa ah oo xasaanad leh oo ku qasban tahay dawladdu inay ilaaliso ma aha qof shaqaale dawladii inuu halkaa ku aflagaadiyo odayaasha waa ceeb weeyaan arrintaana in la iska ilaaliyo weeyi hay-adaha khusaysanaa waa in arrimaha noocaasa ay dabagalaan oy xisbiga ama xisbiyada qaranka ay qiimaha ay leeyihiin ilaaliyaan haddii kale waxay noqonaysaa fowdo aan kala dambayni jirin loogamana baahno waddanka taas aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa beelaha habar cafaan waa beelihii aasaasay xisbigan waddani haddayni ka tegtay xisbi kastaba xisbi beel ma noqdo xisbi kastiba inbaa waddani ku jirta inbaa kulmiye ku jirta inuu cudbay ku jirtaa beel kastiba waa lagu kala baahsan yahay runtuna waxay iman doontaa marka tartanku yimaado ayaa la ogaan doonaa xisbi kastiba dadka oo watay inta ay leeyihiin waxba hadal madhanna sheegi maayo waxaan leenahay xisbigana guul baan u rajaynaynaa madaxda xisbigana guul baan u rajaynaynaa habar cafaan aan ka tirsanahay inay xisbigii sidii uga tirsan tahay haddii aanu qurbannahay iyo haddaan gudannahayba waxaana mas-uuliyiinta xisbiga ee gudaha musharaxa madaxweynaha iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta kale ee xisbiga ka codsanaynaa in xilalkii xisbiga ee habar cafaan heer gobol iyo heer qaranba ay buuxin doonaan ciddii ka tegtay habar cafaanna diyaar ay u tahay qada sharaftanna dhammaantii ka soo qayb gashay waan uga mahad celinayaa axsaabta qarankuna waa xisbiye qaran xagga qabiilkana waxaad moodaa qabiilkii inuu quru noqday anigu waxaan ka soo jeedaa sheekh ibraahim bakaal oo gobolkan laga garanayo oo ka madax bannaanaa qabiil qabyaaladdu ma fiicna xisbiyadana waxaynu u samaysannay inaan qabiilka kaga baxno waxaan u malaynayaa xukuumaddan kulmiye ayaa qabiilka inagu abuurtay axsaabtii inaan kaga baxnaan doonaynayna u adeegsanaysa aad baan uga xunnahay waan cambaaraynaynaa qabiilna qaran ma noqon karo inay maanta halkan martiqaad ballaadhan noogu sameeyeen beelweynta habar cafaan aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waana ku mahadsantihiin waxaanan aad u aaminsanay xisbiga iminka malaha dhowr sannadood ahaa habar cafaan waanan ugu yimid ilaa iminkana way igu maamushaa inagu iyadoo ka buuxdo baanu ogna meel ay nagaga tagtayba maanu ogeen xisbigana maalinba nin baa meel tago aniguba waxaan ka imid barigii hore kulmiye markaa intaa axmedna hadduu ii weydaartay kulmiye waa la isweydaaranayaa laakiinse reeru isma weydaartaan uga mahad celinaynaa qada sharafeedka ama harimo sharafeedka maanta halkan lagu sameeyey ay noo samaysay beesha habar cafaan baan uga mahadnaqaynaa waxaan leeyahay waa baadsantihiin dhaqankeena wanaagsan bay ku jirtaa in martida la marti qaado marka martiqaadka harimo sharafeedka aad baan idinka mahadnaqaynaa waxaan diyaar u nahay inaan iswaraysanno oo maadaama doorashadii lagu dhawaaqay waqtigiina soo dhawaaday
in gaar lasii loo waraysto waa munaasib markaasaa sheegteen insha allahu labad markay noo dhammaato gaar baynu isku noqon doonaa waynu is waraysan doonaa danahayna iyo kuwa qaranka ka wada tashan doonaa